habeen wanaagsan jimco wanaagsan asxaabta ku xiran cabdirashiid qanciye janaalkiisa caawa waxaan idin soo gudbinaynaa saaxiibayaal fariin jacayl ah fariintan jacayl waxaan rajaynayaa caawa inay dad badan taaban doonto fariimaha jacaylku inta badan waxay qayb ka qaataan inay niyadda u dhisto lamaanayaasha dunida isjecel iyagoo inta badan noqon doonta in qof walba uu saameyn gaara ku lahaado waana dadka aynu ka hadlayno kuwa u nugul jacaylka oo keliya haddii ay jirto in qof bini'aadan ah baahi loo qabo nafteeda adiga ayay ku tabaysaa oo ay ku qabtaa qanacsanaan iyo weliba inay had iyo jeer kaa fikirto culeysyada imaan kara mustaqbalka dhow iyo weliba midka qof walba uu rajaynayo waayo qofka naftiisa waxay inta badan u nugushahay inuu ku nuglaado dhagihiisa waxaana ay maqlaan erayo macaan oo ka turjumaya ama ka imaanaya qofka indhihiisa aragtida koowaadna qofka ay daawo u tahay waa ay igu adag tahay inaan saacado ku waayo waxaana taas uu sabab ah qalbiga oo aan u dulqaadan karin inuu iska masaxo inta aan qofka bini'aadanka qofka kale uu sugayo waxayna ugu adag tahay inuu joojiyo tirinta daqiiqadaha waxaase qofka ugu sii adag inuu ku waayo sababo la xiriira xasuustiisa maskaxdiisa waxaana ay meel adag ka degan tahay nolosha qofka bini'aadamka oo qayb ka ah guuldarada laakiin tartarka soo jiidashada ah waxa uu u qalantaa qofku inuu wajaho guuldarooyin fara badan laakiin isagoo aan arki karin jacaylkiisa uu ku guuldaraysto haddii jacayl uu ku hayo keliya dheh sababtaan u noolahay haddii aniga xaggayga ay sidaasi tahay ogow meel ka mid ah dunida waxaa ku nool qof riyadiisu ay tahay dhoolacadayntaas oo ka timid adigoo odhanaya waan ku jeclahay inta badan waxa ay si wada jir ah qofka bini'aadamka lamaanihiisu ay u noqdaan kuwa guulaysta jacayl la'aan waa nolol la'aan heestaana igula raaxaysta saaxiibayaal